lihii ugu dambeeyay waxa magaalada Hargeysa ku sugnaa koox madax dhaqameed iyo sidoo kale siyaasiyiin kala duwan ah oo sheegay inay u socdaan kulan wada xaajood oo ay doonayaan inay la yeeshaan xukuumadda Somaliland kaasi oo daarna danaha horumarinta gobolka Sanaag balse maalmo kadib isla kooxdan odayaasha iyo sidoo kale madax dhaqameedka ahi waxa ay sheegeen inay dana gaar ah u socdaan oo la xiriira shirkadda Asli Maydi oo beeyada ka ganacsata isla markaasina ay xukuumadda Somaliland doonayaan inay xoog ku saaraan isla markaasina ku adkeeyaan in kooto gaar ah loogu xidho ka ganacsiga beeyada shirkadda Asli Maydi annagu waxaanu nahay waftidii ka timi Carigaabo ee u socotay danaha Carigaabo ee ka koobnayd 120ka oo Sanaag baanu ka nimi wafti baanu ahayn waa yeeladii salaadiintii jiif caaqiladii saaxil bari baa yeelana wehelisa oo saaxil bari baa yeelana wehelisa waxaanu u soconay tabashadayadana waxaanu la soconay madaxweynaha dalkana haddaan la xajolo naga hayn maanu nimaadneen shacabka halka jooga ganacsatadan guurtidan nabadgelyadan dadkan wada inay yihiin dad nabadgelyo doonayana inay madaxweynahooda arkaan la kulmaan waxay tabanayaan u sheegtaan taas waa ta dadka qoladeedan Asli Maydi haddaanu sii faahfaahino ganacsatada ku jirta waa dadkii aanu maal gelinay beeyooyinkooda lacag horumarana siinay mashaariic lacag u shubnay kuwii kalena la ka taagiyay waxana la ka joojiyay mashaariicdii lacagtii aanu bixinay tii labaad waa la ka joojiyay wakiilada Asli Maydi saaka waa loo yeeray waxa la warnoolbaad ma habaan laan waa nin ganacsiya oo nabadgelyo doonaya oo nabadgelyo raba oo caalanka Soomaaliland huban oo dalka faa'iido u sameeyo waxaan u leenahay shirkadda halka ka faa'iideena wax ka heshay oo halkan beeyada weey taad wax ka heshay ee wax ku noqoto beeyada ka daa silciska iyo dibindaabiyada iyo wanjalaada aad kula soo socoto barkhadow dadka aad ka hor keenaysan jooji abti beeyadina dareenkoodii waa arkaysa haddaba geesta kale sida xoga badan oo sugan aanu ku hayno waxay beeyatada kala duwan ee gobolka Sanaag sheegeen isla markaasina cadeynayaan in shirkadda kaliya ee beeyadooda hortaagan isla markaasina caqabada ku ah iibka beeyadaasi ay tahay shirkadda Asli Maydi isla markaasina ay propagandooyin kala duwan ay ka faafisay qaybaha ugu badan ee gobolka Sanaag ay beeyadu ka soo godo isla markaasina ay beeyadu tuuran tahay gododkoodii iminka 2 sano waxa la wax naga iibsaday ma jiraan waa fadhida baqara aad arki doonto aan ku tusi doonaa deer markay ruuxno bay iska taala godadka tuuranta baash yadii hore ilaahay hawlmi ma baxad ku sheegayo waan kala baabiyay alaxda ilaahay ka tibi yaqaan dhuguma yiraahdeen badgabigeeda weyba dhowr iyo salaam gabigeeda baasiyo qalin inta hidlo iyo sawireed iyo caday iyo balaay qalqalaynta sawireed ay yahdeen beeyadii oo qoyan oo taasa ajafayo ay ku sheegeen dhir qalashay oo ay dhowr sano gabigooda dhowr iyo 7 sano ay gabigooda weliba alaxda Allah ka tibiye ay naga gaara kaga qatay lacag si kastaba ha ahaatee mulkiilaha iska leh shirkaddan Asli Maydi ayaa waxa xogo la xiriira qaab shaqeedkiisa ama ganacsi ay sheegayaan inuu u shaqeeyo qaabab kala duwan Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid GTN TV magaalada Hargeysa